عقاشة iyo waxgaradka beesha faca weyn ee gurgure ee degta gobolka Gabiley iyo Suldaan Axmed Sheekh Maxamed Ibrahim oo ah suldaanka guud ee beesha gurgure oo kulan ballaaran iskugu yimid magaalada Gabiley ayaa fariin adag oo xambaarsan nuxurka aragtida beesha u diray barasaabka gobolka Gabiley Cabdikariin Aadan Xaaji Deeriye beelweynta gurgure ayaa tilmaamay in fariintani ay barasaabka u direen ay xambaarsan tahay masayrka beesha gurgure عقاشان ayaa ku nuuxnuuxsaday ahmiyadda ay leedahay in barasaabka gobolka Gabiley uu nuglaado baaqa ay u soo jeediyeen salaam bacdigeed waxaan ahay raggu saddex soddon buu jiraa saddexdii soddon ee raggu jirayay 2 sanadood baa iga hadhay waxaan ahay 8 daa ii hadhay kolkaa ma jiro dacaa iga hadhay محمد أبو يوسف أبيه بان لداهي مدة سنسوش غيري تبو ترى وطنيك ميل الله يقول تلامي كلام مجرو ما بوحي يدري كشي ويدري ويجيجا عارفين تيسو هاي وانسور دمي ويقول تفير هذا رمك تقلين كي وي كلابات وحنا هاي odayga dalaasa wax la ii soo xidhay kashigaasi isagaa odaygeedii ahaa anugu waan buko waarka idirnaba ayaan jiifay bar waxba umaanayn kanna waan jiifay oo iminka baan ka kacay sababta iga kacisay dhakhtarku fadhi buu yidhi arrintii waxay u dhacday in saman degmada wajaala la iiga soo gooyey waaran baa la ii soo gooyey 10 dhalaarood mawlaxada ku bixi baa la yidhi 10 dhalaarood isaalkayga waa arkaysaan gashibu ma ayuu ibi hal la qaybiyo kii hore dhammaaday buu kana ka hadhay waan la dardaarma waxaan ku yidhi war itaaliguma jiro dee taladiisa aad u wadayso wad haddaba dadaal kastaba ha soo qabo oo gashiyada ha soo bixiyo naagtii riiqday niqii uu dambeeyay ka kacday ayuu noqdo kaasaan u xidhanay maanta anu mar labaad waxaan soo xidhay inamadaydii gashigaa ururinayay waa kaa hangaarhka ku jiray kolkaan soo xidhay maxamed abu yuusuf wuxuu guntiguu dhiya iskaga dhigo wuu ka sii daya meeshii nin kastaba ha kaashade wuu dilay markaa horta Soomaalidu waxay tiraahdaa haad habeen kacay waxa kiciyay buu qabaa waxa maanta nasku kaaya keenay ee labeentii reerka soo ururiyay waa wax aanu ka yaabnay waxa la yidhi geelu gagabinta geelu baa la yidhi nabarka aanu ogeyn uu ku gagabaa nabarra gagabaa nagu dhacay oo nagaga dhacay dadkii aanu jaarka ahayn aad iyo aad suldaanka lagu mahadnaqayaa suldaanku uu dhameeyayba waxa kulli aan wuxuu ka tagay ma jirto laakiin waxaan ku dar doonaa wixii aanu aan islaa waa macquul dhammaan maanta halka waxa jooga haday aqoonyahan tahay haday culimo tahay hadii ay tahay dhalinyar hadii ay tahay labeentii beesha gurgure halkan aan aawo ku dhannahay aad iyo aadna lagu mahadnaqayaa dhammaantiin waad mahadsantiin Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii lagu sheego waa la is sheelaa haddii lagu sheelana waa la is sheegaa horta maanta waa la nasheelay waxay nagu kaliftay inta badan anagu miidiya isku ma soo taagno qabyaalad iyo qoqob iyo waxyaalaha waxa nagu kaliftay waa la nasheelay inaanu is sheegnaa markaa waa waajib haddii aan dhammaan dadkan meesha jooga waxa weeyaan waa labeentii waa dad aqoonyahana waa dad ilaahay aqligii iyo kartidii iyo waayo-aragnimadiiba uu dhameeyay waxaan haddaba maanta halkan ka hadlaya Soomaalidu waxay tiraahdaa nin baa gabiyey wuxuu yidhi cadeediba dayax shiiqisay waase laba shay ee waxa shamaacba taagii u huray sheeg haddaad garato waxaan leeyahay cidda nagu soo lugoaysa waxa shamaacba taagii u huray sheeg haddaad garato waxaan halkan aad iyo aad uga adkaynaya oo aan suldaanka ku raacaya
in faragelintaa beesha laga daayo annagu beel baanu nahay beesha gurguraanu nahay dad baanu walaalo nahay xeer baanu walaalo kula nahay dhalashaanu walaalo kula nahay dhaqashaanu walaalo kula nahay weligayna wax ceebo aanaan tegin laakiin maanta ceebtaa waxa aan maalin dambe yalla noola noqon maanta aanu arkayno inankii la naga sii daayo cid kale ay na soo farageliso nin sheegtay inuu yahay jiif dee jiifnimadiisa anigu ma garanayo ninka caaqilnimadaydii garan waayey ee caaqilnimadaydii labaad garan waayey ee jiifkaygii garan waayey ee magacaygii garan waayey ee suldaankaygii garan waayey ee inankaagii baan la baxayaayoo ma xidhi kartid oo ma edbid karti yidhi aniga dee jiifii ma aha cidduu jiif u yahay wuu jiif u yahay annagu ciddaan waxooda leenahayna waa ciddaanu saysanno waa caaqil maxamed aw yuusuf caaqil maxamed aw yuusufna reerku tabaalo badan buu ka tirsanaya hadday dhiig iminka uu joojiyey ay tahay haddii dhiigag hore oo laalan ay tahay oo ay dadu xidhmeen haddii ay tahay faragelinta oo intuu madaxii dhaafo uu mijihii uu soo kaxaysanayo waxaanu ka cabanaynaa waa ninkaa caaqilkaa ninkaana waxaan ku adkaynayaa inuu marka horena isagaana diiday dhowr ergaanu dirnay xaad baanu dirnay qadiijaanu dirnay cid hore waxba noogama qaban iminkana waxaan leeyahay ha soo fadhiisto qadiiji ha noo soo fadhiisiso anagu qadiijaanu nahay qadiiji wayna qabataa isaguna hadduu qadiija yahay ha soo fadhiisto hanala garnaqsado haddaanu ku qaldan nahayna hala naga qabto haddii uu nagu qaldan yahayna hala naga qabto waxa aan ku soo gebagabaynayaa anigu kolley hadalka badin maayo oo dee kolley dad badan baa harsan waxaan ku soo gebagabaynayaa annagu qaadan mayno inaanu noqonno magacuyaal baronnaym qaadan mayno annagu qaadan mayno in xaamudka rasayla noo soo magacaabo qaadan mayno annagu qaadan mayno in lana bahdilo qaadan mayno wax qaadan mayno wax alla waxa halkaa jooga waxa ee maanta ka dhiidhiyey waxa weeyaan waa dadkii aanu cumaamadaha u haynay haddaanu suldaan nahay haddaanu cuqaal nahay dhammaantood sow sharafta reerka ma ilaalinaysaan sow sharafta cumaamadda ma ilaalinaysaan sow wixii qaladan nagama qabanaysaan sow wixii qaladee la nagu sameeyan naguma raacaysaan sidii aynu uga garbixi lahayn ciddii gar aanu u dhiganayna nagu qaldan sow garta raalli kama yihidin sow amniga ma ilaalinayno sow nabadgelyada gobolka ma ilaalinayno sow nabadgelyada somalilan ma ilaalinayno sow waxaynu tirsanayna inaynu ku doonno wada fadhi ma rabno dhammaantiin waad sharfantihiin halkan waxa aanu iskugu nimid inaannu guddoomiyaha gobolka gabiley mudane cabdikariim xaaji aadan diiriye inaannu fariin hawada u soo marinno ayaannu iskugu nimid guddoomiye waxaa tahay madaxweynihii gobolka madaxweynaha somalilan adaa gobolka gabiley uga wakiila mas-uuliyadda gobolku adiga ayay ku saaran tahay xil weyn oo culus ayaad haysaa waxaa waajib kugu ah beelaha wada degan gobolka inaad ku hagto cadaalad iyo sinaan ta kale guddoomiye haddaannu iskaa barno annagu horta annagu waxaannu nahay niman gurguro ah oo ba khadiijo ah asalkii khadiijo ayaannu nahay annagu soo raaca khadiijo ma nihin islaanta khadiijo la odhan jiray waxa ay dhashay annaga iyo xergeeye labadaasoo keliya ayay khadiijo dhashay inta kale ee ba khadiijo lagu sheegaa waa soo raac khadiiji waxay ahayd allaha u naxariistay ugaas dhalay waxay ka soo jeeday beelweynta akisho warrakiyo khadiijo maydal aalle ayaa la odhan jiray weliba xergeeye annagaa ka weynaynoo geeddi baa ka weynaa oo odayga annaga ayaa ku horreeyey kadib buu odayga xaad khadiijo guursaday khadiiji waxay u dhashay xergeeye khadiiji labadaasoo keliya ayay dhashay horta kuruskii khadiija ayaannu nahay guddoomiye ee ma nihin soo raaci khadiija inta kale ee ba khadiijo lagu sheegaa waa soo raac khadiiji may dhalin ilmo xaad bay ahaayeen geed weyn oo la hadhsaday ahayd ugaasad bay ahayd iyadaa soo ururisay iyadaa soo korisay sidaa aawadeed baa ba khadiijana loo yidhi
waxa nasiib darro ah dadkii soo raaca ahaa inay maanta annaga yidhaahdaan waxay ka baxayaan khadiija annagu niman baxaya ma ihine orijinaalkii baanu nahay khadiijo ninka ka baxaya waa ninka koobiga ah weeyi ee soo raaca ah annagu ma nihin soo raacee orijinaal baanu nahay meel aanu ka baxna iyo meel aan u soconnaa midina ma jirtee asalkii baanu nahay annagu guddoomiye khadiiji waa 3 qaybood 2 qaybood waa xirgeeye qaybta saddexaad 3 marka loo qaybiyo meeliyaduna waa xirgeeye markaan cigaal xaad ka reebo 2 qaybood ee kale meeli waa gurgure meelna waa ree qayraxaad weeyi sidaa horta guddoomiye noo baro inaannu nahay kuruskii khadiija inaannu nahay laandheerihii khadiija bacdamaa aad tahay nin ka soo jeeda gobollada bari oo habar yoonis ah waxaa laga yaabaa inaanad saa noo aqoon dabadeeto hadalla aan macquul ahayn dad been abuurayaali ay ku soo gaadhsiiyaan adiguna aad run mooddo sidaa aawadeed baan kuugu sharaxayaa horta waxaannu nahay iyo khadiiji waxa ay tahay taasi waa taa ta kale waxaan ku leeyahay gaashaanbuur baan annagu ka mid nahay caaqilka gaashaanbuureed maxamed oo yuusuf baa la yidhaah horta teetalkaa meel alla meel loogu caleemo saaray inuu yahay caaqilka gaashaanbuureed sheekiyo shaahid midna lagu maqli maayo waa caaqil ree qayra weeyi annagaa ku sharafnay oo nidhi caaqil gaashaanbuureed baa tahay waxaa nasiib darro ah teetalkii aannu ku sharafnay inuu annagii dib nagula soo noqdo oo uu maalin walba 4 dib jir oo murtasiqiinah inta uu soo kaxaysto oo uu meel fadhiisiyo uu yidhaahdo waa odayaashii gurgure oo uu waraaqa iyo xeerariyo waxbaan ka saxeexayaa uu yidhaahdo horta waa nasiib darro waxaan ku leeyahay caaqil khayraad tahay kan iyo kuwanna waa caaqil gurgure weeyi wax alla waxaad dheertay haba yaraatee ma jirto khayra kuuguma nimaadno reerkaaga ma faragelinno waxaannu ku leenahay biliis naga daa faragelinta aad maalin walba nagu samaynaysa ilaa kal hore haddaad caaqil naga diin weydo faragelintaa hay-adaha amnigana waxaan cod dheer ugu sheegayaa inay arrintaa ogaadaan hadduu caaqilkaasi faragelinta uu ka dayn waayo beeshayada iyo reerkayagoo gurgure wixii uu ka helay waxba yaanu naga siinin taasi waa taa waxa weeye qaadhaankan iminka hadalkiisu uu taagan yahay annagaa joojinnay annagaa qoraal soo samaynay annagaa badho saabka iyo u keennay taliyaha qaybta inaannu joojinno waxaa nagu kalifay qaadhaankayagii buu ka reebay qaadhaankii sabab alla sabab uu uga reebayna ma garanayno muddo sannad iyo saa'ida ayaannu daba soconnay oo uu cisho walbana meermeerinayaa waxa weeye qaadhaankaa annagaa joojinnay dow baannu ku doonaynaa dow baannu ka rabnaa ba khadiijaannu nahay khadiijina dhaqan bay leedahay dhaqankeedaa noo garqaadaya waxba yaannu kolba 4 dib jir oo murtasiqa meel madow aannu kula shirine odayaashii reerku waa kuwan iyo suldaankii iyo cuqaashii iyo labeentii reerkuba ha soo fadhiista caaqilku ha naga dow baxo cuqaashaa khadiija ayaana dhaqankaa khadiijaana noo qaadaya gartaa taasi waa taa ta kale waxaa la yidhi waxaan la arki jirin haddii la arko waxaa la yidhaahdaa subxaana allah nin caaqila oo ree xirgeeye loodoon caaqil u ah ayaa faragelin nagu haya guddoomiye ninkaasi annaga caaqil nooma aha xirgeeye loodoon buu caaqil u yahay ba khadiijana ma aha maalin walba faragelin buu nagu hayaa xildhibaankan iyo cuqaashani waxay yidhaahdeen war arrinkayaga gal waan gelayaa buu yidhi wuxuu ka meeraysto markii dambena wuxuu yidhi maxamed oo yuusuf ayaa i diidey sidaasuu arrintii waxba uga qaban waayey maalin walba maantoo u dembaysayna munaafaqad buu nagula dhex jiraa mar hore wuu isku kaayo dili gaadhay cuqaashaas oo inamadoodii edbisanaya oo mid ka mida xidhay isagaa badho saabka intuu kula soo hadlay kaa soo daayey guddoomiye mar labaad buu kaa soo daayey markii labaad dil baa dhici gaadhay oo ninkii la xidhay la soo daayey
iyo inan ka mida beesha ayaa halkaa suuqa dhexdeeda isku dilay